baan inagu dhaariyay oo Ilaahay baan inagu dhaariyay oo Ilaahay baan inagu dhaariyay waxaan inaga codsanayaa walaalahayga muslimiinta meel kasta joogan inaana muuqaalkayga qofkii fura ee arka inuu dhaafin baan Ilaahay ku dhaariyay oo walaal aday shargaleystaan oo maxay qalbigayga iyo maanta hooyanimada iyo dhibaatada halkan ay keentay walaal Allah yarxamana abaha ana aqoon baan ahay 9 iyo lagu weyna sidaya 7 sano ayaan garoonka xawaadla fadhiyaa oo fariistaa dharmayd iyo guri aan gabarsadayda ama gabar da'deeda amba iga yar amba iga weyn si aan ugu soo masaxo halka awlaadaas oo walaal igu dayacay hal igu dayacay waxa weeyaan maanta anigu deedba iga yar yar aanan maanta qofna wax igu tari karin oo aynan haysanin walaalahayn xataa muuqaalkayga haday arkaan ay ka naxayaan laakiin aniga walaal dhibaato awadeed i haysata aan waxa weeyaan baraha bulshada u soo galay ibaan idku dhaarshay oo Ilaahay baan idku dhaarshay oo Ilaahay baan idku dhaarshay muuqaalka hadii aad furtaan ha dhaafina waa hooyo hodan waxay nooga waramaysaa waa hooyo haysata 10 ciyaala 6 hablood iyo 4 inamood haysata waxay ka hadlaysaa waayaha adduunka iyo sidoo uu sameeyay iyadaan idku soo dhaweynayaa waydaas dareenkeeda ka hadlaysaa hadii aad muuqaalka furtay fadlan ha dhaafin hodanay ku soo dhaw tobanka habeenimo aanu yimaada ciyaalka adarkaysiin duruufta iyo danta ka muuqata iyo maxay ayaan darada oo maxay albaabka ku soo garaaco iga furaan oo naxanta maxay amba iyagoona waxba u soo helin oo u soo dirin waxba sii karsanin iska jiibsaday amba umada intay wareysteen ku leedin jaarku hooyadin maxaa minimati niiman may noomay wanaga maqan tahay marka wax ma karsateen amba haday helaan haawan karsan dikra ma karsan ma biris loo soo diraa ma loo soo diraa oo sida ay dabka ku saarsan aakhiro nin walba wuxuu shaqaystay weeyaan wala waan rafaadsanahay oo waan dhibaataysanahay oo Ilaahay baa saygoog oo madani maxamed ayga wareysay intii jaarkayga walaal waxa weeyaan anigu maxay 10 ciyaala ayaan la rafaa hadii kalena dhibaatooyinka hodanay ad ka cabanayso maxaa kamida ee qalbiga dhibaatooyinka ka cabanay walaal waxa weeyaan walaal dhibaatooyinka ka cabanay waxa weeyaan horta waxa weeyaan walaal anigu hooyaday baan hooyaday ha noolaato maanta waxay igu tari kartaa ma jirto ubadka kuma daadin karo hooyaday oo anaga ba rafaad iyo agoonnimo lagu soo korsay hadana awlaadeyda aniga curadeedii markaan rafaaday awlaadii maartay ninkii aan ku furay oo barta kaga dhaqaaqay ana awlaadeyda waan ka dhaqaaqi kari waay maxay heeday waan u dharmaydhaa magaalada Hargeysa uga shaqaystaa waxa weeyaan dhibaatada maanta ay keentay awlaadeyda halkay ku nool yihiin halka aan galawada walaalka wada arkaysa maanta hadii aan ooyo iyo hadii aan cabaado iyo hadii aan lilmeeyaba walaal horta waxaan iska bedeli karaa wax Ilaahay ga bedelmay wax iska bedeli kala ma jirto laakiin walaal waxa weyn awlaad inta leegan hayay wax barasho iyada iska daayay qoldaroorigii baan u lahay oo Ilaahay sida igoogi magaalada Hargeysa ee fooqiyo wax walba ka dhisan yihiin albaab ma garaaci karo oo waxa weeyaan xataa maanta kolkan halka ka tageen garoonka tago qof gidaarka iga kaxaysta mooyeen albaabinta ku garaacmayni shaqaya kuma oran karo aniguna waan ka cabsanayaa ayaguna imika dadku waa la kala cabsadaa oo waxa weeyaan qof in garanayn de kale noo shaqay kuma oranayaan albaabka kama furaya bartaasan hadii Ilaahay wax iga siiyo iga siiyaan aan ka helaan ka soo shaqaystaa haddaan wayna bartaasan ka soo noqda xilliga aad aragteen waxaan kule halka ciyaalka ugu soo noqda 74 825 1 4 tara samta taas إذا بسنا حوالي 74 25 401